wafdigan uu hogaaminayay gudoomiyaha imtixaanaadka Soomaaliland ayaa soo gaadhay magaalada Gabiley ujeedka socdaalkooda ayaa ahaa xalinta khilaafaad soo kala dhex galay dugsiyada gaarka loo leeyahay oo maalmihii ugu dambeysay khilaaf ka dhex xaloosnaa kadib markay mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada maamulka dugsiga Iqra iyo waalidiinta ardayda iskuulkaasi ay kulan wada qaateen xal laga gaaray khilaafkaasi. wafdigan ayaa waxa gudoomiyaha ku wehelinayay agaasimaha waaxda dugsiyada gaarka loo leeyahay agaasimaha waaxda kormeerka afayeenka wasaaradda iyo maamulka gudoonka waxbarashada gobolka Gabiley. ugu horeyn waxa warbaahinta la hadlay arintaasi muddo Gabiley ruuxaysay wasaaradda waxbarashada anaga wafdigeena waxa soo diray wasiirka waxbarashada iyo agaasimaha guud si arintaasi u xalisanto waxoogaa iskuulada private-ka Gabiley way ku soo bateen ardayduna waxbay kala dooranayaan tiiba waxay keentay in ardayda kala doorashadooda iyo waxoogi in sharciyiinta la iska iloobo ardaygu halkii uu roo isla halkaas ku rooro tago tiina sharcigi wasaaradda ka yar hor yimid laakiin sidoo muuso arabka ku dhuftay anaga dawa isku kaayooda mid waxa kale aad iyo aad ugu hambalyeynaya maamulka dugsiga iyo waalidiinta iyo ardayda iskuulkaba ardayda waxaan u sheegayaa ardaydu dawaa iska caadifiino meel way iska jeclaan karaan iyagu marka wax ku raaci karaan waxa laga yaabaa macalinkaas maxayga ku fiican macalinkaas maadada ku wanaagsan ardaygu halkaas uu iskaga dhigaa laakiin wax oo dhan sharcigaan ku soo celinay hal codsi bay naga codsadeen ardaydu waxaan rumaanagu arday walba ku noqdo halku ka yimid ardaydii way baroorteen hawl badan bay galeen waxa markii dambe yiraahdeen iyaguna way khajiyeen iskuulada amalaha si yar oo sharci darra markii hore maadaama ay kaga yimaadeen oo ardayda ku hadhay iyo macallimiinta ku hadhay maamulka ka hadhay waxoogaa iyaga u dhoodii khanaas baa ku yar dhacay noqoshada iskuulka mid walba wuxuu iskuulkayga hadaa ku noqdo waxba ii hagaagi maayaan waan drop out gareynayaan iska daaya la qaatay marka iyaga muddo isku noqday iyaga iyo waalidiinta dib isku noqday go'aan baa hadana noo keeneen maadaama uu sheegnay inaan ardaydaasi form 4 ku halkan sii joogeen oo la rabo in laga kaxeeyo go'aan aan xumayn bay keeneen oo fiican isaguna aanu qaadanay runtii markaan anaguna ka tashanay waxa dhan iskuulka dawladda qarax waxal adjeeha 36 kayaga halka la geeyo anaguna dawaba ahlan wa sahlan baan nidoo kulka hore waxaan rabnaa iskuulka cusub in ardaydu in markii ardaydu wada gasho form 4 iyo 2 iyo 3 iyo 1 iyo iskuulka uu noqdo markii la wada amidmaan diidanin form 4rada marka waan ogolaanay in ardaydaasi iskuulka dawladda tagaan qarax maadaama ay yiraahdeen halkii hore kama nimanka si marka waanu ka yar inda dad psychologically waxay ardaydu indaha sii wayday maamulahooda iyo macalinka ay ka soo dhaqaaqeen iyagoon fasax ka soo qaadan oo bedel ka soo qaadan waxbay ka fikireen muddo imisa dhowr biloodana halkan bay joogeen 6 bilood dhow ay halkan dhiganayeen marka waxa iskuulkii kuma noqon karno markaan tashanay mas'uuliyiinta waxbarashada meesha joognay codsiga dambe ardaydu waan ka ogolaanay waana ogolaanay halka ay jeclaadeen in la geeyo tagaan maadaama rabnay inaan intaas oo arday inaga noqon drop out ama ayna waxbarashadii jeerin ama ayna oran waxaan baan yeelano tahriibinay waxa soo dhaanoo kala dagaalamayna waxaan waa tixgelinay waxaan u xilsaarnay oo nala joogalka Maxamed Aadan gudoomiyaha waxbarashada gobolka iskuulka maamulaha qaraxna waxa la farayo inuu ardayda kalaaskoodii u diyaariyo maamulayaasha ay ka yimaadeenna waxa uu sheegaynaa kullaba ardaygu ahaa waxa uu haday 4 bilood buu la joogi lahaa marka hadayba xishoodeen waxaan jeclaan lahayn iyaguna inay sidaa uga xishoodaan ku qaracsanaadaan maadaama ay yihiin aruurtoodii tahay runtii waxaan u nimay arrin ka jirtay dugsiga sare Al-Iqra secondary school ee magaalada Gabiley arrintaas oo dugsiga cusba oo haddana sanadkii koobaad oo qaatay form 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 kiba arrintaas oo la xaliyay soo gabagabeen halkan go'aankeedii ka dhawaaqi doona waalidiinta qof oo hadda doona gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qarankana go'aamadii ayuu noo xaadirin doonaa inuu yeelin doonaa wixii la isla qaatay maadaama waxaan ku gudoomiyay hogaaminayay muxuu ahaa waftiga wasaaga gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadku sheegay hal qodob baan waalidka farayaa waalidka waxaan farayaa bari laga bilaabo inay iyagoo ilmahoogii wada ay xafiiska waxbarashada gobolka ka soo xaadiraan si loo eego nidaamkoodii waxbarasho inay sanad dugsiyeedkii si dhammaystiran u soo wada qaateen inta yar markaan isla xaqiijino si toos ah waxaan u geyn doonaa dugsiga sare qala dhamaantood sidoo kale maamulayaasha dugsiyada waanu iska arki doonaa ardayda kale ee dugsiga fadhida ee 1ka iyo 2ga iyo 3ga bedeladoodii si loo dhameystiri lahaa dugsiga dugsiyada gobolka ka jira ayuu la mid yahay waa dugsi sharciya sidaan dugsiyada kale noola shaqeynayna aad iyo aad baad mahadsantahay salaam waxaan maqalnay gudoomiyaha imtixaanaadka qaranka ee Soomaaliland aad baan ugu mahadcelinaynaa hawsha qaranka uu hayo wuu ku mahadsan yahay maantana wuxuu nagu soo booqday gobolka Gabiley khaasatan waliba degmada Gabiley
waxa dhalliyahan basocotay isjiidida yaroo dugsiga sare ee Iqra oo jiidana soo kala dhaxgalay wasaaradda iyo waalidiinta iyo macallimiinta dugsiga waxaan sheegaynaa maanta hadaan waalidiintii gobolka nahay ama degmada inaan ficilka iyo hadalka soo baxay inaan ka heshiinay si fiican aan isku qancinay annagii wasaaradduga waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Wadeen gobolka Gabiley.